marka masaladaas imika dadka qaar kood baa ugu khaldamo yiraahda madaxweynaha Soomaaliya ayaa waliil Amerika Somaliland waa qadiyad baatil way arintaas shariicada khilaafsan cidii xukunta ayaa waliil Amerika amarkoodii nahyigoodu ka soconayo mar buu ka ahaan jiray kuwan imika jooga kama bay ahaan ba jirin bay dhintay baa mar ka ahaan jiray madaxweynaha Soomaaliya kuwan waligoodba kamay noqonba oo markii dawladii dhexe ee dhulka Soomaalida xukumaysay ay dhacday ayaa halkan nidaam iyo maamul dadkii deganaa ay sameeyay iyo dawlad u talisa oo amar iyo nahyi ku leh iyadoo halka aan waxba ka jirin kadib baa kuwa la sameeyay dadka qaar kood baa oranaya lama ictiraafsana Somaliland oo yaan ictiraafsanayn qaramada midoobay masaayisha diiniga inaba qaramada midoobay ku xidhay meel dawlad ay ka jirto xaakim muslim uu ka jiro ay wadaadada qaar kood leeyihiin dadka waa in la abaabulo oo dadka mudaharaad ee macna dawladda meesha ka jirta ka hor imanaya ee amar diidada ku sameeynaya waa in la taageero kuwa ka mudaharaaday Boorame iyo kuwa ka mudaharaaday Lughaye kuwa ka mudaharaaday Burco wasiidu lahaad Sheekh Ali Wajiis waa in la taageero wadaadada qaarna ay leeyihiin oo mafaasida ka ratibantay dadka waa in la cuna qabatay oo wadaadkii ka dambeeyay Ali Wajiis markay hadlayeen 30 sanood baa la suubay salaaxi maxana eeg mafaasida ka dhalanaysa marka ahkaamta sharciga ee masaa'isha ay leeyihiin marka wax weeyaan laga boodo kuwa jihaadka cilaaminaya ee wadaadada sheeganaya ee Mareykan jooga cid la jihaadin horta xadidaan yujaahiduna man cid la jihaadin waayo hadii la in gaalam la jihaadina beledkani beled gaalama ah oo beled islaamee gaalada ha doontaan dadka taa ka shaqeynayana qaar kood waa qaar takfiirinaya dawladda iyo dadkaba oo madhab al-khawarij aaminsan dadka qaar koodna jahliba wax ku binaynayaan waa dadka iskale ciidan kuba xukumin oo talaaduba gacanta aanay ugu jirin baa waliil amri ku ah ay waajib kugu tahay inaad adeecdo waana min al-xamaaqa aniga iyo cidda ila mid ee beledkan ku nool inaan aqballo halkan hala fawdeeyo hal ila dawladda kama jirto waliil amri kama jiro wayinda waxa loo sunayaa lil imaami حاكمك مسلمين توطلية إمام يا سي أميرة ولي الأمر كان شريعة إلى هذا الله دعوايه هو من له الأمر والنهي وي وكماشا مطاع كأه أمر كيسي نهي كيسو كسعونية وحو أمرانه وسعونية وحو ديدانه وحويان وباقنيه وده أود له وحو كفريه وطلدي isaga looga dambeeyo waa ilaahay wuxuu yahay alladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasuula wa ulil amri minkum ilaahay adeeca rasuulka adeeca kuwa amar kalena adeeca amarkii leey nabiguna kaleey salaatu wasalaam wuxuu nahiyay sa xadiidka cibaado ku sugan saxaabada uu bay'ad ka qaaday an la nunazi'a al-amra ahlihi arrinka iyo talada عدة مسلمة قعنت كوها يسألنا أنا كقبسا كا قعنت كوها يا ولي الأمر حديث كي عرباض أحمد الترمذي أبو داود وريين رسولك عليه الصلاة والسلام حويري وإن تأمر عليكم عبد حبشي فرض عليكم أمره الدون حبشي بقى أمر كيسي هيدن دول ديقو ومعنى هيا شأود إيا السلطة وحيدنكو أمر كره وارن ودي كسعودسين كره ولي الامر نمادو شيغاشا maaha iddia qura qofku meelaanu xukumin ba inuu leeyahay ana halka ka madaxweyne wali al-amri ka sheegasho marka lagu man noqdo wali al-amri lagu man noqdo waliyaada sheekh al-islaam ibn taymiya kitaabkiisa minhaaj as-sunnah wuxuu ku yiri wali al-amriga ama imaamka dadka la amray inay adeecaan waa ka mawjuudka waa inuu joogo على واحد شيء ويني وحردنا يا ده قولوا إن كان شيعة إمامية ده قبا قفان شوجين بع وإليهين ودونت أيا إلا ده عواجبت السفراء يوحبوا لي يوحصير هذا مركي دنبنا حتى السفراء يوحوا كجورير السجو ساكو مغن حلقوا الداعي عمر بك مسوف لي عقل وما سين وحمرين لقوا جانية موجود بما هاي ما بتشوجه بيه ساسو kale waa inuu yahay mid leh amar iyo nahi oo taladu ay isaga gacanta ugu jirto mid aanay talo gacanta ugu jirin ama yaani waligiiba gacantiisa soo gelin ama gacantiisa bariga hore ku jiri jirto ha ka baxdee dadka kaasi taaca kuma leh ma xukumay muxuu taaca ugu yeelan
qofkani muxuu taacada ku yeeshay in la adeeco fi lmacruuf ta inuu xaakimiyo dadkan uu xukumo amarkiisa iyo nahyigiisu ku soconayo marka masaladaas iminka dadka qaarkood baa aad ugu khaldamo oo yidhaahdaa madaxweynaha soomaaliya ayaa weliyul amri ka ah somalilan waa qadiyad baatila weeye arrintaas shareecada khilaafsan ciddii xukunta ayaa weliyul amri ka ah ee amarkooda iyo nahyigoodu ka soconayo mar buu ka ahaan jiray kuwan iminka joogaa kamabay ahaanba jirinbe nin dhintay baa mar ka ahaan jiray madaxweyne soomaaliya kuwan weligoodba kamay noqonba oo markii dee dowladdii dhexe ee dhulka soomaalida xukumaysay ay dhacday ayaa halkan nidaam iyo maamul dadkii deganaa ay samaysteen iyo dowlad u talisa oo amar iyo nahyi ku leh iyadoo halka aanay waxba ka jirinba kadib baa kuwaa la sameeyey markii la sameeyena halkan amar iyo nahyi kuma yeelanba xataa dee ma iman karaan marka masaa'ishu dee waxay u baahan yihiin in diin iyo shareeco lagu saleeyo dadka qaarkood baa odhanaya dee lama ictiraafsanaa somalilan oo yaan ictiraafsanayn qaramada midoobey masaa'isha diinigaanima qaramada midoobey ku xidhan yihin qofka in xaakimka muslimkaa in la adeeco oo alkhuruuju caleyhi uu xaaraan noqdo ma qaramada midoobey inay ictiraaftaa way ku xidhantay shareecadu waxba ku xidhi maysa qaramada midoobey ictiraafkooda waxay wax ku xidhaysaa waa xaakim muslima ma yahay horta ila gaal taaca laynaguma waajibine oo ula amri minkum buuhi ilahi subxana wa tacaala iyo fi lwaaqic xaakimayi oo meesha dee nin xukuma oo amarka iyo talada meeshaas gacanta ay ugu jirta ma yahay taas ayay shareecadu waxa weeyaan ay eegeysaa waxba ku binayn maysa waxa weeyaan ictiraaf iyo ictiraaf la-aan marka wadaadada qaarkood oo masaladaasi ka hadlaa siday uga hadlayaan waa si aada u khaldan mafaasid baana ka ratimaysa siday uga hadlayaan qadiyada ku saabsan dadku inay midoobaan iyo waa masale kale taasi oo dee wax loo saciyiyo wax waaqici labay kale yihiin waxa waaqicaana waan ku celceliyey masaladaasi ee jira wax loo saciyo le waa loo socdaayo waa la doonayaa looma duudsii karo oo lama baabin karo mafaasidda ka ratimaysa waxaa ka mid a in la idhaahdo halkan cidda xukumtaa wulaatul amriba maaha oo kii waxa weeyaan iyagu ay weliyul amriga u aaminsanaayeenna dee muu magacaabin oo naaibka ma aha iyaguna fi lxaqiiqa wulaatul amri maba ahaba marka maxay noqonaysaa halkan inay fawdo tahay oo cid daacadoodu ay waajib tahay iyo dowlad laga dambaynaya iyo waxaas aana jirin oo nin dee iska shacab oo kale uu yahay oo ciddii markaa dee khuruuj ku samaysa aan la odhan waa khaarij calaa waliy اlamr in dee masaa'il kale dhiig daatiya waxaa laga eega mooya taasina hadalladu way ka muuqata oo meel dowlada ay ka jirto xaakim muslim uu ka jiro ay wadaadada qaarkood leeyihiin dadka waa in la abaabulo oo dadka mudaharaadee bimacnaa dowladda meesha ka jirta ka hor imanaya ee amar diidada ku samaynaya waa in la taageero kuwa ka mudaharaaday boorame iyo kuwa ka mudaharaaday lughaye iyo kuwa ka mudaharaaday burco waa siduu lahaa dee sheekh cali wajiis waa in la taageero wadaadada qaarna ay leeyihiin oo mafaasidda ka ratibantee dadkaa waa in la cunaqabateeyo oo wadaadkii ka dambeeyey cali wajiis markay hadlayeen 30 sanood baa la suuba salaaxi maxaana eeg mafaasidda ka dhalanaysa marka axkaamta sharciga ee masaa'isheena ay leeyihiin marka waxa weeyaan laga boodo walaalaha qaarkood waxay yidhaahdeen mar haddii nisaac uu jiro weli dee lama odhan karo dowlad axkaamtii imaamka leh ayay meeshaasi noqotay bacd اlikhwa oo dee naasixiin oo ila soo xidhiiday saas way yidhaahdeen laakiin ayna nisaac waa nisaac kalaamiya wey lakin fi ardi اlwaaqic nisaac kama jiro fi ardi اlwaaqic alamru washanu cid buu gacanta ugu jiraa cidda kale wixiisu hadal ma dhaafsiisna marka innaga waxaynu leenahay halkan dowlad baa ka jirta marka miisaanka shareecada la saaro waliyulamri baa ka jira marba miduu yahayba taladu gacanta ugu jirto raaci baa ka jira raciyaa ka jirta
marka koobaad taa waa in la ilaaliyo oo aan la fawdayn fitno iyo khalkhal aan la gelin oo inuu dhiig daato oo dadku dowlad la'aan iyo maamul la'aan ay ku soo dhacaan waa inaan laga shaqayn qofna inuu ka shaqeeyo wuxuu doonayaa ku sababeeye uma banaana wuxuu doonayaa ku sababeeyo laa yajuusu lahu dadka taa ka shaqaynayaana qaarkood dee waa qaar takfiirinaya dowladda iyo dadkaba oo madhab alkhawaarij aaminsan dadka qaarkoodna dee jahliba wax ku binaynayaan waa dadkaa iskale cid aan kuba xukumin oo talaaduba gacanta aanay ugu jirin baa waliil amri kuu ah oo ay waajib kugu tahay inaad adeecdo marka qadiyadda bacdu likhwa ay yidhaahdeen yani inta uu nisaac jiro weli waa la kala laalaadaayo lama siinayo xuquuqdii waliil amriga cidda meeshaa dee la isku haysto haddii aanay cid taladu gacanta u gelino meeshu meel lagu dagaalamay ay tahay midna xabadda xaga kasoo midna xagan ka ridaya ha laakiin dee waa tii 91 bay hawshaasi dhammaatay oo dee dowlad burca lagu sameeyey soo ma oo sidii dee weli ay u jirtaa oo weli ay u dhisan tahay marka wax nisaac camali ah oo qadiyatu alimaara athar iyo raad sharciya ku yeelan karaa masaladaas waxa weeyaan kama jiro marka waajibka walaalaha muslimiinta saaran gaar ahaan soomaalida ah waa halkan wixii masaalix adduunye ka jira oo ay ka mid tahay dowladnimada deganaanshaha kala dambeynta iyo masaalix diineed halkan waxa ka jira waa dhulkaa diinta ilaahay lagu baranayo dadka loogu sheegayo lagu waaninayo xorriyad dadka oo haystaan diintii in la dhigo dadka in loo sheego la wacdiyo in la ilaaliyaabaa waajiba qof kastoo muslima waajib bay ku tahay wahada laa yakhusu hada albalad arrintaasina kuma gaaraha beledkan bal waa xukum caama mar walo aan hadlana taa waan raaciya oo kalaami laysa can casabiya meel gaara aanu tacasubayo oo haddaan beled muslima bannayn lahaa in fawdo iyo khalkhal iyo fitno la geliyo ayaa la odhan lahaa meella waxaad leedahay ha la ilaaliyo meella waxaad leedahay ha la khalkhaliyo ha la qaso laakiin dhulka islaamka oo dhan madax muslimiin ay ka taliyaan meeshu ha yaraato ama ha weynaato ha ballaadhnaatee ayaa xukumkaa iska leh waana xukum sharciya oo diini ah oo lilaahi ah waana min alxamaaqa aniga iyo cidda ila mid ee beledkan ku noole inaanu aqballo halkan ha la fawdeeyo ha la idhaha dowladii kama jirto waliil amri kama jiro cid daaca idinku lihi ma jirta waxaad doonaysaan sameeya amar diidda ku sameeya dowladda halkan ka jirta oo ka hor yimaada si ay dadku u midoobaan haddii la midoobiyo muslimiin oo dhan bay tahay inay xaqa ku midoobaane dee waxaan khayr haysta isagoo jira dee ha la midoobo saasaan ku leeyahay dee qof kale arrimahan midnimada ugu gabbanaya hadday midnimadu kaa dhab tahay ma waxaad leedahay horta baaba gurigaa ka qax oo dadkaagu ha dhintaan oo masaalixda diinadii adduunyaba waa si adigoo habqana aad u ogolaato markaa in la midoobo laa naqbalu hada laa caqlan walaa diinan caqli ahaan iyo diin ahaanna taa ma aqbalayno kuwa jihaadka iclaaminaya ee wadaadada sheeganaya ee maraykan jooga dee cidday la jihaadayan horta ha xadidaan yujaahiduuna man cidday la jihaadayan waayo haddii leeyihin gaalaan la jihaadaynaa dee beledkani beled gaala maaha waa beled islaam ee gaalada ha doontaan hadday iyagu la jihaadi karayaan dee ha doontaan wixii ilaahay uga calfaabay kala kulmi doonaane hadday u jeedaan beledkan iyo dowladdiisa iyo dadkiisa aan la jihaadaynaana waa tii horeba wadaaddo ay ugu lugo-een oo intaasoo jeer dhul islaam oo dhulka soomaalidu uu ka mid yahay ay jihaadka iclaamiyeen oo nafahoodiina ay galaafteen dad muslimiinana ay galaafteen natiijaduna ay noqotay laa shay iyo sifir ay noqotay qofka muslimkaa wax maslaxad diineed ama adduunye hadduu ka hadlayo ariiqa sharciya waa inuu maro wado shareecadu ay ogoshahay waa inuu u maro waa inaanu dadka muslimiinta ah cadaawad dhex dhigin iyo nacayb iyo wax sii kala fogeyn iminka say u hadlayaan
dad culimo sheeganaya waxa weeyaan waa si dadka nacayb sii dhex dhigaysa oo dadkii muslimiinta waxa weeyaan sii kala fogeynaysa oo cadaawad dhex dhigaysa oo dadka dambaajinaysa oo inay isku dambaabaan oo iscaayaan oo isxantaan sabab u noqonaysa marka waa in arrintu marka hore ikhlaas noqoto iyo lillaah mar labaadkana waa inay noqoto mid ariiqa sharciya loo marayo oo rifqigii la ilaaliyo ma kaana rifqu fii shayin ila zana wma nuzica rifqu min shayin ila shana buuri nabigu alayh salatu slam in allaha yuxibu rifq wayucطi cala rifqi ma laa yucطi cala alcunf wma laa yucطi cala ma siwah saasuu uhi nabigu alayh salaatu wasalaam marka masalada waxayna gelisay halkaa uu leeyahay musanifku wayundabu lilimaami yaa imaamadaas ayayna gelisay waay dadka qaarkood waxay dhahdaan xaakim kastama waxaad leedihin hala adeeca maya xaakimkaan leenahay hala adeeco shardi waxaa inuu muslim yihi qofka isagule muslim maaha waa gaal dee isagaa caddaynteeda laga rabaa iyo inuu masalada lafteeda caddaysto dee masalada uu banaanka la soo istaago oo dhahda waa gaal dee qaacida caamana u ka dhiga dee oo tafriiq bayl mutamaahilaat ma banaana dee wax isku mida in la kala tafriiqi oo laba xaakim oo isku mida midna gaalnimo lagu xukumo midna islaamnimo wax weeyaan loo sugo marka ilaahay baa taa sheegay oo yidhi wa ulil amri minkum minkumna macnaheedu waa damiirku muslimiintu u noqonaya yacnaa muslima haddii uu gaaloobo dee xuquuqdii walil amriga ma laha laakiin in lala dagaalamaa waxay sharci noqonaysaa oo talada awood lagaga tuuraa markay qudra sharciya ay jirto oo macnaheedu uu yahay atamakul min alficil ficilkaa in la samayn karo ah in meesha laga qaado xaakimkaa gaaloobay ee diinta ka baxay iyada oo mafsadada joogistiisa ku jirta mafsado ka weyni aanay ka ratib mahayn la dagaalankiisa